sida la wada og yahay habeenkii ciidda waqti badan kama dhimana waxaan la sii qorsheynayaa gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho laba show ay kala qabsanayaan laba koox oo fanaaniin ah oo aad loo xiiseeyay heesahooda yaa kala qabsanaya labada show maxaa ka jira in Sharma Boy uu ka baxay kooxdii sawirkiisa qaadatay markii hore oo uu hoggaanka u hayo Ismaaciil Arka dadman nashaad showgeeda oo xidiga miisaan la kala wareegay showga Ismaaciil Arka dholatuska labada kooxood iyo Sharma Boy oo ugu dambeyn bahdilay fanaaniin caan ah dabarjabinna ku sameeyay Diixadan Nuurshe iyo Shaadi Sharaf dad badan ay barnaamij soo dhigistay xaqiiqo waxa idin sheegayna anaga showin qaar looga wacay oo kuma jirno show aan ku jirno waa showga fanaaniinta Hargeyso koorka hadalka xaqiiqada labada show iyo cadeemaha muujinaya halka ay fanaaniinta miisaan kale u badan yihiin laagsar muuqaalkan kuna soo biirbogeena adigoo u sheergareynaya asxaabtaada kale si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga anaga show qabanayna ciida haduu ilaahay yiraahdo mana jecleen inaan soonka ay dadkii oo maxaa la yiraahdaa ajir iyo xasanaad iyo maxaa la yiraahdaa karaamo ku jira inaan ka soo dhaxgelino fan iyo waxaas showga habeenkii ciidda ee Muqdisho waa hadal haynta ugu weyn ee taagan maanta xitaa iyadoo waqtiga kan uusan ahayn xilli la hayso oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan laakiin saasaanta iyo kala qaybsanaanta fanaaniinta caanka ah ee labada show kala qabsanaya ayaa ka dhigaysa in si weyn loo hadalayo habeenkii ciidda iyadoo aan bal la gaarin iyo saadalinta waxa dhici kara dhawaan waxaa baraha bulshada qabsaday sawirkan idin muuqda oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah fanaaniinta ugu caansan Soomaalida ee hadda Muqdisho jooga waxaana tigidhka showgaasi lagu qoray magaca hobolka Daadiyara Ismaaciil Arka kaasi oo dhawaan ka soo laabtay hoyga fanka Soomaalida ee Hargeysa Somaliland jihada kale waxaa caasimadda Soomaaliya Muqdisho soo gaaray boqorada codkeeda Manashaad taasi uu helinayo Axmed Aarshe oo ah fanaan muddooyinkii dambe saaxada si weyn aan uga soo muuqan balse miisaaniyad leh waxaana ay far waaweyn ku qoreen showga ay qabsanayaan lama ogeyn cidda ku helin karta fanaaniintan caanka ah showgooda iyadoo la dareemayay in showga Ismaaciil Arka uu yahay mid ka miisaaniyad badan midka Manashaad balse saacado ka hor wax kasta ayaa isbedelay iyadoo fanaaniinta kala Sharma Boy Khalid Kaamil Maslax Mideeye iyo Xamda Bilan ay ku soo biireen showga Manashaad taasi oo labada show ka dhigaysa kuwo isku dheelitiran Sharma Boy oo hore sawirkiisa loogu xusay showga Ismaaciil Arka ayaa hadda isku bedelay inuu yahay qurxiyaha showga Manashaad waxaana ay taasi xiisaha ka tiraysaa showgii hore magaciisa iyo sawirkiisa loogu isticmaalay oo ay ka soo muuqanayaan Diixadan Nuurshe Ismaaciil Arka Shaadi Sharaf iyo fanaaniin kale Sharma Boy oo muuqaal soo duubay kaliya magaciisa ma uusan xusin waxaana sidoo kale sheegay in fanaaniin badan oo ay ka mid yihiin saaxiibkiisa Maslax Mideeye Khalid Kaamil oo lagu daray Xamda Bilan iyo marwadiisa Malyumaanka ay qurxin doonaan showga fanaaniinta uu martida ku sheegay ee kaga yimid Somaliland ee Axmed Aarshe iyo Manashaad anaga show qabanayna ciida haduu ilaahay yiraahdo mana jecleen inaan soonka ay dadkii oo maxaa la yiraahdaa ajir iyo xasanaad iyo maxaa la yiraahdaa karaamo ku jira inaan ka soo dhaxgelino fan iyo waxaas laakiin dad badan ay barnaamij soo dhigistay xaqiiqo waxa idin sheegayna anaga showin qaar looga wacay oo kuma jirno showga aan ku jirno waa showga fanaaniinta Hargeyso Somaliland qaasatan kuwa ka socdo showgooda ku jirnaa martii noo yihiin Axmed Aarshe kaliya kobciye qofka la yiraahdo Manashaad Malyumaanka Xamda Bilan waa la badiyay asxaabtu waa inoo ciida Axmed Kabanle aan dhahay Maslax Mideeye Khalid Kaamil waa la badiyay group baa leeyahay asxaabtu waa inoo maalinka ciida inta kale ama qashan waa in kale oo Sharma Boy haddii aan ku kala saaran labada show ee xidigaha ka soo kala muuqan kara dhanka showga Ismaaciil Arka waxaa ka soo muuqanaya fanaaniin ay ka mid yihiin Diixadan Nuurshe Shaadi Sharaf Fatax Yare Sidi Cali Winkey Maxamed Kaadheeri iyo fanaaniin kale oo dib kaga soo beeri kara jihada kale iyo showga Manashaad
waxaa ku jira fanaaniin badan sida hadda la tilmaamayo, waxaana ugu horreeya Axmed Aarshe, Maslax Mideeye, Khaalid Kaamil, Najma Nashaad oo showga magaceedu uu ku socdo, Sharma Boy, Malyuun Maanka, Xamda Bilan, Maxamed Sobanle iyo magacyo kale oo miisaan leh. Tani waa kala qaybsanaan miisaan leh, waxaana ay tahay su'aasha milyanka doolar ku kacaysa. waa kee showga ay ku badan yihiin fanaaniinta aad xiisayso oo aad tigidhka u jaran lahayd? labada showne midkee ayaa xiise badan? haddii aad taageero u tahay showga ay ka soo muuqanayaan Dayaxdal Nuurshe, Shaadi Sharaf iyo Ismaaciil Aarka, muuqaalkan loof saar. haddii aad jihada kale Sharma Boy, Najma Nashaad iyo Xamda Bilan aad taageero u tahayna, muuqaalkan waxaad saari kartaa like. aragtidaadana ku soo qor qaybta hoose ee commentiga. waad ku mahadsan tahay taageeradaada ila jaanqaadkaaga.